war degdega magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxaa ka taagan xaalad culus aad ayaa la isu khilaafsan yahay madaxweyne Aadan Madoobe magaaladaas inuu dib ugu laabtaa la diidan yahay haddaba waayo cidda u diidan lafta gareen hub iyo gaadiid dagaal ayuu soo dhigtay duleedka magaalada cabsidii ugu weyneed ayaa taagan beeshiisu way garab istaagtay sidoo kale guud ahaan beelaha digil iyo mirifle shirweyne aan inaba caadi ahayn ayay ku baaqeen oo ka dhan ah aayahooda waxay yiraahdeen waa inaan anagu tashana maadaama Xasan Sheekh iyo kooxdiisu maamulka nagi ay afduubeen oo magac u yaal un hadda aan nahay oo koonfur galbeed anagu aan leenahay aysan jirin waa inaan anagu tashanaa ayay si cad u yiraahdeen sidoo kale Aadan Madoobe mashaqo kale ayaa ku haysata magaalada Muqdisho waxaana ballanqaad uu ka helay dalkii ugu horeeyay ee uu kulan la yeeshay Aadan Madoobe durbo waxba isku xirxiraya ninkan xilkii baarlamaanka isniinta soo socota laga wareejinayaa wuxuuna wajahayaa baa la yiri caqabada xitaa madaxweyne Xasan Maxamuud ayaa ka aamin baxaa leeyahay ninkan magaalada Baydhabo khilaaf iyo taagtaag ayaa ka taagan lafta gareen dhaqaale ku kala furfuraya markan lacag malaayiin dollar ayuu u horeeyaa inuu Aadan Madoobe kursiga dhaafiyo haddaba sidee bay wax u dhacayaan wararkaas oo dhan soo koobayna saaxiib si toos ayaan Baydhabo u tageynaa soo dhaw muuqaalka like saar siina share gareey waa mahadsan tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa ku sugan Aadan Madoobe oo hogaamiyaha koonfur galbeed xitaa waxa la yiri dastuurkii ugu dambeeyay ee uu ansixiyay isaga jabiyay sababtoo ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada dastuurka wuxuu ugu yeerayaa hogaamiye laakiin isaga hadda muxuu isugu yeeray madaxweyne tan waxay muujisay baa la yiri ninka in xitaa dastuurkii qaranka uu markaasi dhibaato ku yahay sidoo kale waxaa duleedka magaalada Baydhabo madaafiic iyo hub culus oo aan inaba caadi ahayn soo dhigtay ninka la yiraahdo Cabdicasiis lafta gareen iyo ciidan isaga taabacsan ciidankaas waxay ku hanjabeen in duqeymo iyo madaafiic iyo gantaalo ay cardaadiqada kaga dhigayaan magaalada Baydhabo ee gobolka Baay sababtuna ay tahay inay doonayaan isbedel Aadan Madoobena aanay ku qanacsanayn raalina ka ahayn waxa muuqanaysa marka in Aadan Madoobe uu wajahayo xaalad qoys dhinaca madaxweyne Xasan Maxamuud kalsooni badan kama haystaa la yiri ninkan oo horay kalsoonidii loo siiyay laguma qabo waana nin waqti kasta isbedeli kara oo cabsi iyo walaac xoog leh ayaa laga muujinayaa waxa kale oo xusid mudan daawadaya in magaaladaas uu ka socdo shirweyne ay yeelanayaan beelaha halkaas wada dega gaar ahaan beelaha iskale koonfur galbeed ee digil iyo mirifle oo ay aayahooda uga tashanayaan beesha raxweyn waxay doonaysaa ugu yaraan haddii koonfur galbeed ay sii jirayso inay jirto koonfur galbeed macno leh oo ugu yaraan deegaanadaas wax un markaasi ka qaban karto Aadan Madoobe xamar ayuu ku sugan yahay wuxuuna la kulmay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya isaga oo deeq ka raagsanaya durbo wuxuu bilaabay dawarsi iyo inuu kaalmo weydiisto adduunka isaga oo markaasi xaaladiisuba ay hal ku taagan tahay kulanka labada mas'uul waxa diiradda lagu saaray baa la yiri xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iskaashiga soo jireenka ee ka dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Shacabweynaha Shiinaha waxaana labada dhinac isla garteen muhiimadda ay leedahay si ambaqaadida wada shaqeynta dhinacyada horumarinta dhaqaalaha iyo kaabayaasha sidoo kalena in si gaar ah loo garab istaago deegaanada koonfur galbeed isagoo howlihiisaas xamar u jooga ayaa gadaashiisa waxa laga falkinayaa baa la yiri arrimo kale oo waaweyn oo isaga oo dhan majarihiisa markaasi lagu xaabinayo laguna soo afjarayo Aadan Madoobe waxa muuqanaysa marka in xaalku yahay mid culus sidoo kalena deegaanada koonfur galbeed ay markan foolanayaan isbedel lagana yaabo in isbedelkaas uu noqdo mid dabar jabiyo ama guud ahaanba weeqa ee Aadan Madoobe Baydhabo waxa isaga cararay lafta gareen oo muddo halkaas xukumayay wuxuuna maciin biday dalalka dariska gaar ahaan Kenya ayuu galay isagoo 30kii March sanadkan lagu doortay magaalada Baydhabo laakiin waa awoodi waay inuu sii xijisto hadda marka wuxuu wadaa inuu kala furfuro marba ciidana goosanaya marba saraakiil goosanaysa duleedkii magaaladana waxa ka taagan xaalad aan inaba caadi ahayn